halkan waxaa lagu qabtay madal ka duwan kulamihii hore ugu dhici jiray magaalada Muqdisho kaasoo isugu yimaadeen dhalinyarada jecel xirfadda artiska si ay u soo bandhigaan hibada ku duugan. Kulankaas waxaa soo qaban qaabiyay mid ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta xirfadda artiska ee ku nool magaalada Muqdisho Cabdinaasir Forsi in kulanka ujeedkiisa wuxuu yahay balance la aragno caawa. waxaa garabkayga taagan mid ka mid ah gabdhihii ka faa'iideystay caawa bandhigan hibada farshaxanka ee artiska lagu soo bandhigayay marka hore soo dhawow ujeedka caawa halkan u joogtid bal noo faalo. waa dhawahay magacayga waa Nuura ujeedka meeshaan u joogo waxa waaye waa dhiga casuumay waxaa la soo bandhigay inaan hibadayda banaanka soo saaro aad ma santiina leeyahay sida quruxda badan ay ugu yeerteen eventigan quruxda badanna aad raali oo noqday markii kuugu horeysay wax sawirtamiya alxamdulillah markii wax igu horeysay wax sawiray waaye aadaan ugu faraxsanahay inaa wax niyadeedu ku jiro sawiro aad ugu faraxsanahay. haddana waxaa garabkayga taagan Sagal Cali oo caawa ka mid ah dhalinyarada hibada farshaxanka soo bandhigayay Sagal ku soo dhawow Bilan Media. aad u mahadsantahay abaayo caawa waxaa fursad u helay inaan ka qayb qaato eventigan lagu sameeyo paintingka runtii waxaana waa khibrad aad iyo aad u qurux badan markii ugu horeysay waxa isku dayay in aan wax sawiro ugu dambeyntiina waxay noqotay wax aad u qurux badan ayaa meesha ka soo baxay marka farxad weyn ay tahay oo ku mahadsantahay in adinka xataa ka mid tihiin dadka ka soo qayb galay isla markaana naga qayb qaatay experience-gan quruxda badan marka caawa jawigu waxa waaye mid oo hal meel lagu soo koobi karo ma ahan. garabkayga waxaa taagan Cabdinaasir Forsi oo ah wiilka ka dambeeyay barnaamijka halkan ka dhacay Cabdinaasir oo kulankan ujeedada u sameysay muxuu yahay. aad ma siin Bilan Media kulankan caawo waxa muhiimadiisu weyn waxay ahayd qof kasto inuu expression ku sameeyo waxa niyadiisu ku jiro farshaxan ahaan inuu sameeyo sidoo kale fikirkan ama idea inaan sameeyo waxay ugu dhalatay su'aalo badan oo dadka aad i weydiinayeen marka social media wax soo boost garay ama dadka marka wadada u arkaan artska ma la baran karaa goorma dadka artska bare idea waxa soo waday muddo 4 bilood aniga iyo teamkeyga oo runtii aad igala shaqeeyeen oo i saacideen maantana caawan wuxuu noqday mid guuleystay ideas waxayna ahayd markii ugu horeysay oo Muqdisho barnaamij noocan kale lagu sameeyo. kulamada noocan oo kale ayaa kor u qaadaya isdhexgalka dhalinyarada iyo bilicda magaalada Muqdisho. Shukri Maxamed Cabdi, Bilan Media, magaalada Muqdisho.